السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتي بالشوين تصوماليد ميرو بجوكتان عشر كان وعشر كدن بيز إن كستو وقت يرى كيرا قواي عشرة ذا عشر كان ويحكو حيجا عشر كسيفيجا إن بدنا قف مركو دوني وحبرشة كله وحبرشة وحوين كطلابة qofku ku qaadi lahaa marka suuqa galayo hadaan xirfad haysan weeyaan marka maanta waxa soo qaadanaa nidaamka waxbarashada ee Swedish-ka marka si af Soomaaliya uu sharaxaya bilowga qofku markuu wax baranayo hadduu ilmo yar yahay ilaa ilmo weyn si noqoto barashada si waadix u ahaato qofka laftiisa weyn iyo caruurtiisaba dad waxaana casharada badana si yaro sharxaad oo dadka soo gala ama dadka badana aanan ka haysan information badan oo ku saabsan waxbarashada ama systemka barashada ee buildingka Swedish-ka ama waxbarashada Sweden imanka ku soo dhawaad casharka waa noo Rashiid Jaamaca waxaan ka bilaabi doonaa kow waxbarashadu waxay ka bilaabantay Grund Schoolan waxa weeyaan dugsiga hoose dhexe xaggeen oo kale waa xaggan waxa weeyaan sida loo arkaan 10 sanadood weeyaan waxay ku daraan waa 9 weeyaan sanadka tobnaad wuxuu ka bilaabanayaa 6 waayo 6 bay ku bilaabanayeen iskuulka waxayaan marka Grund Schoolku yaanan ka sii dheereen Grund Schoolku waa obligatory waa wax qasaba qof walba wax barasho dhulkan qof walba degan ilmo yar markuu yahay waa xaqiisu waana ku qasban yahay in wax barto marna xaq buu leeyahay in wax barto marna waa ku qasban yahay marka Grund Schoolan haato marka tahay dugsi hoose sare balka dugsi hoose dhexe marka waa 10 sanadood ka soo bilaabno xagga marka soo bilaabno kale waxa weeyaan 6 sano markuu yahay kale for school class wax loo bixiyo waa ogtiin badana dadku daagisyada geeyaan caruurta marka sanad yihiin ilaa iyo 5 sanadood sanadka shanaad markuu dhameeyo kadib wuxuu baxaa ka lixaad markuu galayo kale wuxuu galaa for school class waa waxa weeyaan diyaarista weeyaan lagu diyaarinayo ilmaha si uu bilaabo koobaad marka 7 jir markuu noqdo wuxuu gudbayaa galaaska koobaad markuu 8 jir haadana waa ka labaad markuu 9 jir haadana waa ka saddexaad log study baa loo bixiyaa waa ka dugsi hoose weeyaan isniin oo kale dugsiga kalena waxa weeyaan Milan study wuxuu bilaabanayaa markuu 10 jir haado ilmuhu kaaf galaaska afraad 11 jir markuu haado galaaska shanaad markuu 12 jir haadana galaaska lixaad hog study baa bilaabanayaa markaas oo kale 13 jir markuu yahay galaaska toddobaad 18 jir markuu yahay galaaska sideedaad markuu 15 jir yahayna galaaska sagaalaad marka 10kii sano intaas ay haaraysa iminka waxa uu gudbanaa gymnasium waa free qofka hadduu doonayo uu dooran karaa ilmuhu inuu barto wax barto dadka qaar baa caruurtoodu waxbarashada inta ka go'aan iska shaqeeya markiiba shaqo hela ama meel magaranaysa ka shaqeeya marka qasab ma aha gymnasium waa dugsi sare weeyaan marka 16 jir markuu ilmuhu haado wuxuu bilaabay galaaska koowaad 17 jirna markuu haado galaaska labaad 18 jir ilaa iyo 20 jirna wuxuu ku jirayaa galaaska saddexaad macnaha inta uu dhameenayo gymnasium qofku ilmuhu xagan jaaniso badan baa ka jira qofku markuu 16 jir yahay ku jiro gymnasium maadooyin kala duwan buu baran karaa mid aan ku diyaarin karo isagu oo u gudbi karo ilaa jaamacadda heer jaamacadeed ama mid suuqa shaqada ku saabsan oo gymnasium qaato markiiba wax baranaya midaan kale mulale sidoo qaab sidoo qofku midaan kale kalarka iyo waxa gidaarada iyo waxa mirmirin lahaa rinjiga waxa hadduu doono wuxuu dalban karaa under coachka ama waxyaalo ku saabsan saas oo kale oo laga helo programka loo bixiyo balka gymnasium program loo bixiyo oo ku saabsan ha gudubno muhiimadda ugu weyn ee dadka waaweyn wax loo bixiyo vocational building hadaba vocational building waa maxay vocational building wax walba ku saabsan barashada dadka waaweyn wixii 20 jir ka sii gudba 20 30 40 saac waxa ka bilaabi doona SFI-ga example qofku markuu bilaabayo SFI-ga kulay waa garanaysaan qofku markuu bilaabayo SFI-ga wuxuu ku bilaabi karaa kulay sharxaad ku saabsan SFI-ga oo imika qaadan doona kuma si dheeraanayo kow qofku wuxuu markuu doonayo wax barto SFI buu galaya wuxuu ku sii gudbi karaana wax weeyaan Grund Voxan Sask oo Grund
saas grunt loo bixiyo waa intaas waxa uu qalantaa grunt school qofku inuu dhigtay markuu intaas soo dhameeyo marka maadooyin buu ku soo qaadanaya kulay grunt ama saas grunt waxa jira wax kale oo loo bixiyo confox waxayaan gymnasium waxa uu dhigmataa dugsi sare qofku markuu confox dhiganayo confox markaas ilmuhu marka dhameynay marka gymnasium kale irk buu dooranaya mihnad confox laftiisa waxa dalban karta maadooyin ku saabsan mihnad hadhow si aad mihnada lafteedu maadooyinka qaadatay waxa ka caawinaysa waxbarashadaada jaamacadeed hadaa wadi doontid waxbarashadaada waxa weeyaan Volkhov schoolen wuxuu kala dhaxeeyaa labada meelood buu kala dhaxeeyaa waxa weeyaan ama balki confox iyo irkis hoog schoolen marka taa lafteeduna waa wax nacabti muhiim weeyaan qofku badana inuu waxa uu noqon doonaa awtig doonaa ridel art waxa uu noqon doonaa irkis hoog schoolen qofku wuxuu ku dhigan karaa maadooyinka markuu ka soo dhamaado confoxka oo maadooyin soo qaato ilaa adigu waxa jirta ilaa 5 maadooyin mathematics ingiriiska SAS Faranska A B C waxyaalo ku saabsan oo qofku ku gali karo irkis hoog schoolen laakiin wuxuu ku soo qaadanaya confox buu ku soo qaadanaya xaqana Volkhov schoolen qofka hadduu dhigto 3 sanadood maadooyin ku saabsan aduu ilaa 4 maadooyin 3 sanadood markuu dhigto wuxuu qalantaa inuu qofku gymnasium dhameeyay marka wuxuu kala dhaxaysaa irkis hoog schoolen iyo confox university-na qofku markuu galayo kolley wasila jaamacadena dhulkan loo gali jiray wax laga dalbanaya marka doonaysa maadada dhiganaysid ba ku xiran tahay haday doctornimo tahay dhakhtarnimo tahay haday tahay engineering haday tahay wax ku saabsan matalan kale duuliyaha ama wax walba qofku maadooyin baa laga rabaa inuu soo dhameeyo confoxka marka muhiimadda asaasiga ugu horeysa waan iloobayna in sheego waxa weeyaan qofku inuu la xiriiro badana study vague leedare wuxuu helaya su'aalo ku saabsan wuxuu helaya jawaabo ku saabsan CSN-ka distance iyo kushashka laftiisa waxyaalaha la bixinayo distance ku saabsan asaga xitaa ku sheegi kara kamuunadu isku mid maaha magaalooyin kala degan magaalaba si qaab iyadoo u khuseeya bay wax u maareysaa oo xurriyad bay leedahay ma garatay waxa tagi karta magaalo waxa lagu leeyahay distance kuma dhigan kartid saas magaalo kala tagaysa saas waxa ku dhigan kartaa distance SFI-ga qaar baa lagu dhigta magaalooyinka distance qaarna laguma dhigto distance marka study vague leedare kamuunka inuu tagtido marka ka wada hadashaan arbes waxa kale xagga yaala in la sugayo waxa weeyaan markuu qofku dadku qaar baa ka daala waxbarashada systemka waxbarasho dheer qofku soo qaadanayo waniyo waqti dheer buu ku qaadanaya marka waxa jira taa calaamad casriin soo saaray waxa weeyaan arbes markanad oo ku saabsan utbuilding oo ku saabsan arbes modeling kala bixiya waa kuushashka gaagaaban weeyaan ay ku saabsan isteedaraha ama ay ku saabsan bil mechanical ama ku saabsan mullare ama ku saabsan sneakere wax walba arbes markanad waxa jira arbes markanad building baa jira arbes modeling ka helaysid marka wax la xiriir karta haleygarkaaga waa u sheegaysa wax qoraysa waxa xiiseeya matalan kala basaskana wado wuxuu kuna ku shaqaysaa jira 6 bilood ama 3 bilood oo magaalada u baxaysa magaaladan ama tan ama mid kale marka hadduu magaalada degan tahay ka weydid magaalo kale ku gudbinaya waana saa marka SFI qofku markuu dhameeyo SFI-gana waa suushka lagu bartaa af suush baa lagu dhigtaa SFI-ga marka qofku hadduu inta ku xayiraamo oo ka bixi kar waayo SFI-ga ma ahan meesha fariisto lahawnay waxa ka dhaqaaqi karo way wax ka dhaqaaqi karta waxa jira cut way baa jira ma vague oo qofku markiiba ka gali karo arbes markanad utbuilding directly oo marka qofka kuma xirayaan waxyaalo badan hadduu doono wax lagu xiri karaa xitaa undercoatishka wax lagu xiri karaa inuu si niveau inuu dhameeyo kale midan oo kale Swedishkana yara turturan karo magaalooyinka qaar buu qofku ku baran karo wuxuu doonayo B markuu dhameeyo niveau SFI-ga B markuu gaar mustawaa B-ga xaqan waa ka gudbanaa insha Allah taala waxaan u gudbanaa qaybtii kale baan u gudbi doonaa oo ka sharxi doona SFI-ga waa maxay SFI-gu waxa weeyaan 3 qaybood weeyaan
ama 4 bilood waayo ka afraad waxaan qofkaan wax barashaba soo qaadinba kuush a isla waragna kuush a waka b c d marka aad wax bilaabo badan qofku markuu wax barasho iskuul soo qaadan ama wax barasho iskuul gaaban ibir ilaa 5 sano tanna wax bilaabi karaa b buu ka bilaabi karaa qofku markuu wax barasho soo qaatay 6 sano ilaa 15 sano oo b c d oo SCV-ga niveau walba waa ugu yaraan 6 bilood ilaa ugu yaraan 3 ilaa 6 bilood qofka marka lagu qiimeynayo oo ka bixi karo 6 ku xisaabso waxay noqon doontaa sanad bar bay noqonaysaa inta 3daasi kana waxay noqonaysaa 2 sano kana sanad bay noqon kartaa tanna waxay qofku markuu wax barasho sano haysto oo 12 sano wixii ka sareeyaba oo Englishka yaqaano markii uu gali karaaba inuu C snap loo bixiyo D kadibna dhameynayo SCV-ga aan soo gaabiyo iskuulka wax barashada si maapka u soo qaadano sawirkan uga faa'iideysano first school waxay daagiska ilmaha yar markuu 1 sano yahay ilaa 5 sano oo dhiganayo ama ma dhiganayo lagu haayo lagu xanaanayo xagga lafteeda wax barasho yar buu ka soo yar qaadanaya ku saabsan kelmado qaabka suulan iyo waxyaalo saas oo kale lagu xanaanayo ilmaha yar first school class oo qofku ka bilaabay xagga first school class-ka waxa weeyaan 6 markuu galo waxa loo sii diyaarinayo inuu grade school ku dhaco oo galo macnaha laamigii inuu toos u qabsado marka ilmaha wala sii diyaariya grade school u gudbo waana grade schoolna waa waxa weeyaan dugsi hoose dhexe wasa u soo qaadana marka hore imikana markuu kaas dhameeyo grade school qofku wuxuu galay gymnasium markuu dhameeyana wuxuu gali karaa fogo school ama uu ka gudbi karaa wuxuu gali karaa hogus university ama hogus school buu gali karaa xagana fogo school meelo kale jira ku saabsan dadka waaweyn leexadii dadka waa meesha u soo leexan lahaayeen waa kuma function building-koodu waa qaybaha weeyaan SFV-ga iyo grundsaaska iyo gymnasium wuxuu qofku markuu soo dhameeyo kadib xaqaas complete buu sameyn karaa nacamti wuxuu diyaarinaya maadooyinka looga baahan yahay jaamacadda ama irkis hoog schoolan markuu dhameeyo maadooyinka kadibna jaamacaddu galaya ama hoog schoolan buu bilaabaya haddaba qofku badanaa dadkeenu waa dhigta weeyaan dhigtaha anagu badanaa waswareysana Soomaaliya hadaan nahay waniga suuqi maxaa shaqo ka jira waniga maanta shaqooyinkaasaa jira shaqooyinkaasaa la waayay shaqooyinkaasaa la helay saasaa loo helay laakiin Swedishku ayadu dhig dad aad saa dhigta isku sii maaha meel bay ka eegtaan marka garano meesha dadku ka eegtaan Swedishku ama bulshada ku nool Sweden sida wax u raadistaan marka doonayaan midna kale shaqadu xageey bay ku eegtaa nacamta xagee taala macna waxaan intaan wax barasho bilaabin aanu garto maxaa loo baahnay suuq muxuu rabaa wax barashada suulan wax ku xiran tahay suuq u xirabo teeno kala maaha xagga wax leeyahay maxaa loo baahnay suulan maxaa loo maanta loo baahnay wax loo baahnay nurse ba loo baahnay kuushish hal furo nurse maanta maxaa loo baahnay wax loo baahnay dad basaska iyo tagaasida wada kuushish loo bilaabo la furo maxaa loo baahnay macallimiin ba loo baahnay hal la furo macallimiin kuushish loo furo iskuulaha loo furo balka jaamacadaha kaarsi badan lagu siiyo oo aku qaataan maadooyinka diyaarista macallimada iyo waxa marka xagan 20ka waxayaan Joban iyo Creasan shugo hotaste irkan jisnu imika lafteeda waqtigan aan joogno 2020ka nacamti مثلا كله حجيبي شوكتا سوق الشغالة مثلا كان مركا يجنو كله حجيبي مرة